Kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobada wararkeena hadduu alla idmo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay madaxweyne Farmaajo oo la kulmay mar kale dhabarjabintii ugu xooganeed oo kala kulmay xubno ku jira garabkiisa xilli madaxweynuhu uu isu diyaarinayo inuu ku dhawaaqo ololihiisa musharaxnimada doorashada 2026 waxaan soo gudbin doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay madaxweyne Farmaajo xubnaha dhabarka ka toogtay iyo sidoo kale diyaarinta uu ugu jiro in uu ku dhawaaqo ololihiisa musharaxnimada guri ku yaala magaalada Muqdisho oo lagu soo bandhigay wararka xisbigiisa nabad iyo nolol oo loo diyaariyay munaasabada uu madaxweynuhu ugu dhawaaqayo in uu noqdo musharax u taagan mar kale doorashada 2026 warbixin gaar ah oo arintaasi ku aadan ayaanu idiin soo gudbin doonaa dowladda Soomaaliya oo shaacisay xilliga ay si rasmi ah u shaqo bilaabayso Soomaaliya Ireland iyo dowladda Soomaaliya oo mar kale ay u soo hoyinayso guul weyn oo taariikhi ah waxaan idin la wadaagi doonaa macluumaad iyo xogo dheeri ah oo arintaasi ku aadan xogihii iyo wararkii ugu dambeeyay maxaa ka jira warka sheegaya in dowladda waddanka Djibouti ay xirtay isla markaasina ay ciidamo geysay xadka Looyacade xogo ku aadan ayaanu idiin soo gudbin doonaa tagtaag halkaasi ka taagan dagaal miyaa dhexmari doono Somaliland iyo Djibouti waa qodob gaar ah oo aynu ku faaqidi doono barnaamijkeena haddii alle laga helo xaaladda magaalada Boorame maanta waa sidee waanu idiin soo gudbin doonaa warbixinadaasi wixii nagu soo kordho ayaa daawo doontaa saaxiibayaal haddii aad tasxib nagu cusub nagu soo bir muuqaalka like subscribe saar barteen YouTube korkom wararkeena iyo dhacdooyinka xiisaha gobolka ku soo baahino waa hagaagano ku bilaawno wararkeena madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la soo warinayaa in mar kale dhabarjabin uu kala kulmay xubno ku jira kooxdiisa siyaasadda kuwaasi oo bilaabay in ay u kala gurtaan xisbiga Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale kooxaha garbyada mucaaradka xubnahan ayaa xiriiro hoose waxay la sameysteen xisbiga Xasan Sheekh Maxamuud iyaga oo doonayo inay ku biiraan kooxda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo horaan dhabarjabintii ugu weyneed kala kulantay agaasimihii hore NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo xubno kale oo uu ka mid ahaa agaasimihii warfaafinta ee madaxtooyada kuwaas oo gebi ahaanba isaga baxay xisbiga madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddana waxaa la soo warinayaa in uu madaxweyne Farmaajo uu dhabarjabin uu kala kulmay koox xildhibaan ah oo u sheegay in ay qayb ka noqonayaan xisbigiisa xildhibaanadaas ayaa waxaa ka mid ahaa xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo la ogyahay inuu ka tirsan yahay xisbiga madaxweyne Shariif Sheekh Axmed muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu ka mid ahaa ololaha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin sida ay wararku sheegayaan madaxweynaha oo isku diyaarinayo inuu soo bandhigo marka la eego munaasabad weyn oo uu ku shaacinayo ololihiisa doorashada 2026 ayaa mar qura waxa garabkiisa ka baxay xubno xildhibaano ah oo kudlad isku xiran ah kuwaasi oo marka hore ku soo dhaweeyay magaalada Muqdisho isla markaasina u sheegay in xisbigiisu ay qayb ka yihiin waxaana ay bilaabeen xildhibaanadaasi inay qaarkood ay u kala gurtaan halkii asalkoodu ay ka yimaadeen Farmaajo oo siyaasadda kalkan ku soo galay sifo ka duwan sidii lagu bartay ayaa waxa uu doonayaa in uu mar walbaba uu gaado xubnaha farxadka ah ee ka imaanayo kooxda Xasan Sheekh Maxamuud ee dhexdooda khilaafku ka taagan yahay iyo sidoo kale garbida mucaaradka ee aanan ku qancin fikradaha dal burburinta ama fikradaha markaasi burburinta dalka iyo aragtiyada lagu aflagaadeynaya ciidanka qaranka kuwa ka soo goosta oo u arka madaxweyne Farmaajo siyaasi nadiif ah oo uu meel cidla ku sugay xubnaas ayaa qaar horay marka la eego garabkiisa inay yihiin u sheegeen ayaa hadda ka baxay mar kale ayuu sugayaa xubno kale oo ka soo goosta garabyada mucaaradka iyo sidoo kale garabyada kooxda isku raranka ee filla Soomaaliya isku soo wada dub madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa la sheegay in uu guri ku yaalo magaalada Muqdisho uu ku diyaariyay xarunta xisbiga nabad iyo nolol inuu noqdo si uu halkaas ugu soo bandhigo ololihiisa doorashada 2026 waxaana la arkayay boorar iyo sawiro lagu dhajiyay kuwaasi oo ka turjumayo in xisbiga nabad iyo nolol halkaasi uu saldhiga doono Farmaajo ayaan hadda gacanta ku haynin siyaasiyiin waaweyn kuwaasi oo wax u goyn kara marka la eego ololaha doorashada laakiin waxa uu ninkan uu hadda ku taamaya inuu heli doono siyaasiyiin waaweyn oo maqaawiir siyaasadeed ah kuwaasi oo ka soo farxan doono mucaaradka iyo sidoo kale garabka Xasan Sheekh Maxamuud inkastoo haddaba xubno markaasi ka mid ahaa garabkiisu ay bilaabeen inay ku biiraan xisbiyada Xasan Sheekh iyo kuwa mucaaradka iyaga oo markaasi u arkay in hadda Farmaajo uu gacanta ku haynin xubno wax u goyn kara
Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo rag badan oo saaxiibadiisii siyaasadda ayuu madaxweyne Farmaajo waayay 5 sano ama 4 sano ee uu dalka ka maqnaa. hagaag daawadayaal markan waxaanu eegi doonaa dowladda waddanka Jabuuti oo la soo warinayo in gebi ahaanba ay xirtay xadka Looyacadda iyadoo ciidamo ay soo dhoobtay sida ay sheegayaan waridi xilkaas ah dowladda waddanka Jabuuti iyo sidoo kale Somaliland ayaa khilaafkoodu hawada isu sii shareeraya marka ka dambeysa kadib markii dowladda waddanka Jabuuti ay ka carootay bahdilka lagula kacay beesha Ciise ee markaasi degta qayb ka mid ah gobolka Awdal taasi oo loo diiday bandhig ay qorsheysay in ay ka qabato meelo ka mid ah gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Boorame oo xarun u ah gobolka iyo sidoo kale magaalada Saylac. bandhiga buuga inkastoo si rasmi ah Saylac uu kaga dhici rabay laakiin diidmadu waxay ka timaadeen magaalada Boorame oo shacabkeedu ay diideen. xukuumadda Cirra oo ku dhici weysay in shacabkaasi ay awood ku maquuniso ayaa dhinaca kale waxa ay cadaadis ay kala kulmaysay dowladda waddanka Jabuuti laakiin xukuumadda Cirra ayaa ugu dambeyntii qaadatay mowqif siyaasadeed oo gaar ah oo ay u aragto in bulshada lagu kala badbaadinayo ama bulshada iyo dowladda lagu kala badbaadinayo kadib markii isku dhacyadii rabshadaha watay ee ciidanka iyo dowladda ay sababeen in ay askar badan ay sameeyaan in ay si toos ah ay u toogtaan dad shacab ah oo aan waxba galabsan. inkastoo kiiska toogashadu dadka shacabka ah ee reer Boorame ay Somaliland ka fogeysay haddana dhinaca kale waxaa la soo sheegayaa in ay tani ay abuurtay caro xoog leh oo la xiriirta Jabuuti iyo sidoo kale marka la eego Somaliland. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa la soo sheegayaa in maamulkiisu uu ciidamadii ugu badnaa uu saacadii la soo dhaafay uu ku daadgureynayay xadka sidoo kale tana Jabuuti gebi ahaanba ay xirtay xadka ay la wadaagto Somaliland iyada oo arintaasina lagu macneeyay sabab siyaasadeed. dhinaca kale waridi xilkaas ayaa sheegay in dowladda waddanka Jabuuti ee gadaal ay ka riixayso ajanda weyn kaasi oo qorshihiisu uu yahay in la sameeyo maamul cusub oo lagu cadaadinayo madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro si baa la yiri uu ogolaado qorshaha ay wadato dowladda waddanka Jabuuti iyo sidoo kale bulshada reer Saylac beesha Ciise in loo ogolaado bandhigooda ay halkaas ka dhigayaan. laakiin beesha Gadabursi ayaa dhinaceeda arintan si weyn kaga soo horjeedo iyada oo wax walba u sameynaysa sidii loo baajin lahaa bandhiga buuga lagu qabanayo magaalada Saylac way u aragto in uu markaasi beeshu duusiinayo xuquuq ay leedahay sidoo kale tana uu ku jiro karo ama uu ku jiraba xeerkaasi afkaaro asalkoodu aan markaasi raad ku lahayn diinteena suuban ee Islaamka. isku soo wada duuba dagaalka labada dowladood ayaa noqon kara hadda mid marka ka dambeeyo faraha ka baxo. madaxweyne Cirro ayaana nooca markaasi xaaladda siyaasadeed uu ka qaadanayo dowladda Jabuuti la isweydiinayaa xiriirka miyay Somaliland u jari doontaa Jabuuti mise waxa ay bilaabi doontaa tallaabo diblomaasiyadeed oo si hoose lagu xalinayo arinta ka soo dhex cusboonaatay iyaga iyo sidoo kale marka la eego maamulka Ismaaciil Cumar Geelle ciidamada uu dul dhigay magaaladaasi ayaa haddana waxa ay yihiin kuwa dhaqdhaqaaqyo xoog leh ka wado aaga magaalada Saylac iyadoo dhinaca kale tana shacabka reer Saylacna ay muujinayaan dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda xaaladda ayaana waji lama filaan ah yeelatay. geeska kale tana daawadayaal haddii aanu fiirino dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay xilliga si rasmi ah ay u shaqo bilaabayso Soomaaliya Ireland. wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Faarax Nuur ayaa si rasmi ah u shaaciyay in dowladda federaalka Soomaaliya ay dhawaan dib u howlgelin doonto shirkadii diyaaradaha ee Soomaaliya Ireland. talaabadan oo soo afjarayso in ka badan 30 sano oo ay hawada ka maqneed astaantii qaran ee duulista iyada oo dib u soo celinayso rajada shacabka Soomaaliyeed. isaga oo xaddi hadal ka jeedinayay magaalada Muqdisho wasiir Faarax waxa uu xaqiijiyay inuu jiro dardar xooggan iyo sidoo kale diyaargarow qaran oo ku aadan soo nooleynta shirkadda. waxaanu dhisnay guddigii maamulka ee Soomaaliya Ireland waxaana meel marinay shuruucdii iyo nidaamyadii hagi lahaa howlaheeda. sidoo kale waxaanu markaasi heshiisyo la gaarnay saaxiibo caalami ah annaga oo soo iibinay diyaarado casri ah. waxaanu markaasi kalsooni buuxda ku qabnaa in dhawaan shirkadeena qaran ay dib u soo laaban doonto ayna dib ugu soo laaban doonto hawada iyada oo calanka Soomaaliya si sharaf iyo karaamo leh
uga qaadayso dalka gudihiisa iyo sidoo kale dunida dacaladeedaba, ayuu yidhi wasiirku isagoo hadlayay. Wasiirka ayaa intaasi ku daray in dowladdu ay meel gabagaba ah marsiinayso qorshayaashii howlgalka, isaga oo markaasi sheegay in rajo weyn uu ka muujinayo in Somali Airlines ay duulimaadyadu dib u bilaabi doonto ka hor dhamaadka sanadka 2025 oo toddobaadyo uun ay naga xigaan. Dhanka kale, waxa uu daaha ka rogay in 4 shirkadood oo caalami ah ay dhowaan ay ku soo biiri doonaan duulimaadyada Soomaaliya, kuwaasi oo ku biirayo 8 shirkadood ee haatan ka howlgala Muqdisho oo ay ka mid tahay Turkish Airlines. Isbeddelka adeega hawada Soomaaliya ayaa noqon doono mid markaasi wax weyn iska bedela, laakiin tallaabada Somali Airlines dib ugu howlgali doonto ayaa noqon doonta tallaabo guul weyn ah, iyadoo madaxda Soomaaliduna ay adeegsan doonaan marka ay u safrayaan dalalka dibadda diyaaradda Somali Airlines. Gudaha wararkeena qaybta wanaagsan ka dhigo.